بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal waa barnaamij gaar ah oo ku saabsan baaq nabadeed oo loo jeedinayo dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. waxaana soo jeedinaya aqoonyahan sare Cabdisalaan Xaaji Ismaaciil oo maanta martii noogu ah studio-ga Danjir ee magaalada Columbus, Ohio. aan ku soo dhawaad Cabdisalaan barnaamijka adigoo mahadsan. waa mahadsantahay aniga Cabdisalaan Xaaji Ismaaciil waxaan halkan maanta aan uga dirayaa baaq nabadeed oo aan ugu baaqayo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. dagaalka Soomaaliya ka socda maanta waa dagaal siyaasadeed, waa dagaal siyaasaysan, waa dagaal dhaafay Muqdisho, dhaafay goboladii, dhaafay Soomaaliya, dhaafay wadamada dariska aynu nahay ee Soomaalida ay tagto oo weliba ku sii socda dalal ajnabi oo ka sii fog. sidaa darteed aniga oo madax ka ah hay-adda loo yaqaano Somali Watch Group waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed, dawladda Soomaaliyeed, baarlamaanka Soomaaliyeed, madaxweynaha Soomaaliyeed intaasoo iswada raacsan iyo ururka Al-Shabaab inay u diyaar garoobaan ama ay ogolaadaan wada hadal siyaasadeed round table inay isugu yimaadaan oo looga hadlo dagaalka Soomaaliya socda sidii loo debin lahaa. walaalayaal waxaan idiin sheegayaa dalal badan oo dagaaladaas ay ka dhaceen oo kaleeto dagaal sokay uu soo maray noocyadaas oo kale dagaal siyaasadeed ay soo mareen, laakiin inta waxaa lala daba taagan yahay in la wada hadal siiyo, in la wada hadlo, in la wada xaajoodo, in la soo gunaanado. laakiin dagaalku hadduu noqdo dawladda Soomaaliya ay tiraahdo waxaan dabar goynaynaa Al-Shabaab, waxaanu ka qabsanay dhulkii oo dhan, hadhaagoodii oo dhan, hal baanu u yeedhaynaa, halna daroon baan madaxa kaga tooganaa haddii dawladda Soomaaliya istaagto, Al-Shabaabna ay istaagaan meeshii shir ka dhacay waa qarxinaynaa, ama dalka gudihiisa ha ahaato, ama dariska ha ahaato, ama gobolada kale Soomaaliya ha ahaato, meel kasta waa qarxinaynaa iyana hatiisa soo taagaan. waxa weeyaan dhibaatadu waxay ku dhacaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed iyo madax banaanida Soomaaliyeed. maanta Soomaaliya waxay noqotay neef xoolo ah oo dhulka ku dhacay oo dhaawac ah, calooshiisii la faganayo. yaa faganaya wadamo ajnabi ah, dalalka dariska ah, ururo caalami ah, shakhsiyaad intaasoo dhanna dalahooda kaliya raadsanaya. dawladda Soomaaliyeed iyo Al-Shabaabna waxay eegyihiin inay lugaha iyo madaxa u hayaan neefkaa la guranayo, calooshiisa saa loo guranayo ayay u agtay xaaladda Soomaaliya maanta. saa darteed waxaan idinku baaqayaa dad muslimiinaad tihiin, dawlad muslimiinaad tihiin, waxaan idinku baaqayaa inaad ogolaataan wada hadal siyaasadeed, xal siyaasadeed in loo helo arrinta Soomaaliya. waxaan doonayaa tusaale fiican in idin siiyo. sanadku markuu ahaa 628 milaadiya, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo loo diiday inuu Maka soo galo oo uu cibraysto ayaa mataqaanaa uu wada hadal la furay, nabadgelyo, heshiis nabadgelyo uu la galay nimankii Maka haystay oo weliba qabiilkiisa ah oo Quraysh oo gaala ah. wada hadalkii uu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu yeedhay sulh al-Hudaybiya loo bixiyay ama heshiiskii Hudaybiya, magaalada Hudaybiya, tuulada Hudaybiya, marka waxaa loo bixiyay sulh al-Hudaybiya 628. waxaa lagu wada hadlay in 10 sano heshiis nabadgelyo la gaaro oo hubka la dhigo. nimankii gaalada ahaa ee Qurayshta ahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay soo jeediyeen ay yiraahdeen heshiiska waxaa ku qoran bismillaahir rahmaanir rahiim, katir bay yiraahdeen muslimiinna bismillaahir rahmaanir rahiim. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu ogolaaday si uu nabadgelyo u qaato, si uu soo dhiig u daadin mid muslimiin mid gaalatoona. haddana waxaa la yidhi waxaa ka jirtaa rasuulullaahi meeshana haddaad rasuul tahay oo ilaahay noo soo kaa diray kumaanaan oon ku aqoonsanay dee kumaanaan diidneen, iyadana katir bay yidhahdeen. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogolaaday inuu ka tiro isagoo maxameda keliya ah calayhi salaatu wasalaam, rasuulkii wuxuu ogolaaday magaciisa keliya ah in lagu qoro oo nimankii gaalada heshiis la galo. sidaas sulxul Hudaybiya heshiiska lagu galay, Maka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ay ku galeen. inta maxaa u suurta galay 2 sano gudahood inta heshiiska la galay waxaa u soo galay nimankii qaacidintii ugu waaweynaa mataqaana qoladii la dagaalamaysay sida Khalid bin Walid oo kale. wuxuu awoodan fursad u helay inuu la shiro madaxdii qabiiladii, nabadoonadii, cid walba inuu la shiro, dabeedna ujeedada uu lahaa oo dhan markaa uu gaaro intaan 10 sano la gaaro 2 sano hore inuu ku gaaro. marka walaalayaal dad muslimiinaad tihiin, Al-Shabaab idinka muslimaad sheeganaysaan, dawladuna waa dawlad muslima oo wadan islaam ah, 100% shacabka Soomaaliya waa dad muslimiin gaarab kumaanaan ogeyn inaad ogolaataan oo nusuusta ku soo aroortay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida uu u raadiyay wada hadalka nabadgelyada uu helay oo mataqaanaa uu heshiiska ku gaadhay. shacabka Soomaaliya dhiigoodu da'ayo, dawladaha dariska oo dhiigoodu da'ayo,
shacabka Soomaaliyeed dawladaha dariska ka hoos nool oo dalkooda nool oo kala dhigoodu daayo walaalayaal wax dhigooda cid inoo banaysan ma jirto la taqtulu nafsa allati harama Allah illa bil haqq nafna haqq waxaan hayn lagu dili karo lama ogola xitaa gaalo muslim iyo gaalo midna haqq waxaan hayn lagu dili karo marka labada dhinacba gabood falka way wadaa labada dhinacba dagaalka way wadaa waxaan idin soo jeedinayaa baaqa nabadeed oo aan idin fidinayaa gobol nabadeed in mid round table ay soo wada timaadaan oo kulliga soo timaadaan waxaan tusaale kale idin soo qaadaya dalka Nigeria 1966 waxa ka dhacay inqilaab koox yar oo gaalaha ay inqilaab sameeyeen ra'iisul wasaarihii wadankaas Abu Bakr Bouteflika iyo madaxdiisii in badan ilaa 12 madaxdiisii sare ayay dileen oo wadooyinka soo dhigeen wadanku soo kala baxay muslim iyo gaalo laakiin nimankan waqooyiga deegaanka muslimiinta ah maarta muslimiinta saraakiishooda ayaa shiray 12 sarkaal oo alif la ugu hooseeyo alif la saddex alif la ku xigo ilaa gaashaan dhexe inta u dhaxaysa madaxdiisa waa la iska reebay si ay inay ku xukunka u raadsan ayaa shiray waxay shireen war muslim iyo gaalo inoo kala qaybinaya dagaalka inaan galaal doonaya subxaan Allah sarkaal marka ingiriiska soo laabtay tabar ka soo laabtay magaca wadanka laba maalmood kale joogay layton kale Yacquub al-Gawar oo waliba gaala ah oo Kristaan ah oo waliba kiniisad ku soo koray baa loo yeeray iyaga muslimiin ah inta saraakiish ko ilaata kuna waa muslimiin bay soo fariisay waxay dhahdeen gaaliga muslimaa la doonaya inay isulayno waxa la doonayaa noordka oo muslimiin iyo southka oo masiixa maamul goboleedaasi inay islaayaan baa la doonayaa wadankana laga faa'iideysto waliba afar dawladood oo Ingiriisku ka mid ah oo gumaysan jiray markii uu aqoonsaday qolada koonfurta oo goosatay oo markaa falaaga Yacquub al-Gawar wuxuu ku guuleystay muddo gaaban inuu soo afjaro dagaalkii Biafra muslim iyo gaalo la doonay in la soo dhamaado isagoo nin gaalo ah baadana oo muslimiinta soo doortay baadana uu noqday nin qaacida oo wadani ah oo mataqaanaa wadankiisii mideeyay wuxuu noqday madaxweynihii ugu caansanaa wadanka Nigeria hadda eega saraakiishaasi waxay ahaayeen muslim nin gaalo bay soo qaaday waxay war muslim gaalo suuleena bal hadda eega dawladda iyo shabaabku waa laba muslimadu waa muslim war meedka muslima baqow iyo 320 kun oo ciidan ah oo ajnabi ayaa jooga midka kun iyo 300 dollar buu qaataa markuu dhintana 50 kun buu qaadanaya reerkiisu qaadanaya waxay u joogaa kala wadanka in la qabsado shirkado ajnabi oo shidaalka Soomaaliya iyo macdanta Soomaaliya gurta ayaa loogu talagalay in la gurto sida daraadeed walaalayaal dad muslimiintiin waxaan idinku baaqayaa inaad round table aad ogolaataan madaxweynaha Soomaaliya inuu ogolaado baarlamaanku inuu ogolaado golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha inuu ogolaadaan maamul goboleedyada inay ku dhawaaqaan shacabka Soomaaliya inuu barnaamij sameeyo taageero u sameeyo wada hadal in sameeyo shabaabku inay ogolaadaan hada waxaan ka soo qaadnaa balaashanadii ugu dambeeyay gaarsa 147 lagu dilay maxaa ka dambeeyay maxaa si ka horeeyay gaarsa 1980kii 3000 oo Soomaaliya lagu dilay maxaa loo bixiyay gaarsa guba maxaa dhacay laba nin oo niman la yiraahdo shufta ayaa dilay laba nin baa niman shufta baa laba nin dilay baa leeyahay 3000 oo Soomaali ah oo cid weyn oo wada muslim oo reer gaarsa oo wada ogaadana ayaa lagu dilay magaalada gaarsa maxaa ka horeeyay maxaa ka dambeeyay 1984kii February maxaa dhacay maxaa wajar ka dhacay wagaala maskaran 5000 oo Soomaali 5000 oo Soomaali oo rag oo la soo ururiyay baa xirada airport inta lagu soo xoreeyay 5 maalmood cuntalaan iyo biilaan la dhigay kadibna la gumaado oo aan hal qof uusan ka fakan waad ogtiin wagaala maskaran waa taqaanaa maskaradkii ugu xumaa Kenya ayuu ka dhacay waad ogtiin gaarsi gubay wuxuu ku xogay maskaradkii ugu xumaa ee labaad buu noqday haddana waa kana waa socdaa marka walaalayaal waxaan idin soo jeedinayaa inaad ogolaataan wada hadal siyaasadeed oo la soo fadhiisto dhawaan maxaan sameeyay anigu sanadkii 2013kii madaxweynaha Mareykanka waxaan u gudbiyay proposal aan u bixiyay political solution proposal on Syrian crisis wadanka Syria dadka Soomaaliya dadka soo dhaweeyay baa iyagoo Calawiyiin iyo Sunniyiin labadaba Soomaali si wada jir inuu soo dhaweeyay sadarteed dagaalkoodii waxaan sameeyay inaan madaxweynaha doorashada la shaqeynayo Obama inaan mataqaanaa aan u gudbiyay proposal 5 qodob ah oo aan leeyahay war dadka kan isu kaan wada heshiisii waxa uu raadinayay waxay ahayd inuu Bashar al-Assad tago qodobada soo jeedana waxa kamid ahayd Bashar al-Assad sidoo ku tagi lahaa isagoo ogol in goolnaha loo soo celiyo in iyaga la wada hadal siiyo inaan loo kala saarin muslim iyo sunni iyo shiica inaan loo kala saarin inaan loo kala extremist iyo taayib xiran yahay ikhwaan duub xiran toona
maaragtay dadka dadahan loo eego laakiin ma indhici sababtoo ah istiraatiijiyada laga lahaa ma ahayn in la heshiisiyo ma ahayn maanta waxaa muuqata shabaabka in la leeyahay waxay la galayaan ISIS oo aan markaa jirin aan heshiiska raadinayay aan jirin inay la gasho ISIS taas waxay noqonaysaa dabkii Soomaaliya ka socday oo gas lagu shiishubay marka shabaabka waxaan soo jeednaa walaalayaal haddii muslimiintu daacad inay ka tahay hadday runayda ka tahay shahaadadu hadday runayda tahay tawxiidka ganafkiina ka baxay hadduu run yahay inaad ogolaataan heshiis nabadeed wadahadal siyaasadeed inaad ku dhawaaqdaan waan ogol lahay oo dal muslimiina oo dhexdhexaada laydin geeyo oo labadiina aad ku wada hadashaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبد ما استهان عبد السلام وأنا قصور فارونا ودقت لي سلاس إيو نبي تقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.